gurigan aad arkaysaa waa gurigii loo dhisay qoyskii ka koobnaa dhowr iyo 10 qof ee dhamaantood ay wada xanuunsanayeen. qoyska dhamaantood wada xanuunsanaya waxa ay ku nool yihiin tuulada Balli Carrale ee gobolka Daadmareed. guriga waa loo dhisay hadda waxa uu marayaa litirkii ummadda islaamku meel kasta ay joogaanna waxay ku codsanayaan familku in la soo caawiyo. Maxamuud waa wiilka kaliya reerka ka caafimaad qaba habeen iyo maalin la dhacaya qoyskiisa waxa uu qabtaa wax walba ay u baahan yihiin iyadoo awoodiisa ay aad u kooban tahay isla markaana wax adduun aanu haynin. Maxamuud wuxuu leeyahay ummadda islaamka ahow intii hore ii soo caawisay ilaahay ajar iyo xasanaad haydi ka siiyo. gurigii meel fiican ayuu marayaa litirkii ayuu marayaa. gurigan wuxuu leeyahay Maxamuud waa guriga aan rabo inaan qoyska wada xanuunsanaya ku hayo oo hadda meel baadiya oo cidlo ah oo geed hoostiya ku xidhan. wuxuu leeyahay Maxamuud ummadda islaamka ahow ka soo qayb qaata ilaahay dartii soo caawiya si aan gurigaasi u dhamaystiro. maanta waxaaynu halkan aynu joognaa waxa weeyaan goobtii gurigu ka socday xaafadda Maxamed weeyaan ma sha Allah gurigiisa arkaysan wuxuu marayaa fooq fiyaarihii ama waaba u dhaafayba meel wanaagsan uu marayaa. waxayna hore u arkayseen dadkii oo xidhan oo geed hoostiisa ku xidhan waxa ku xigtay anagoo seeskii bilownay oo soo gelinay imikana waxaan halkaas ka tusaynaa in uu gurigii meel fiican marayo in uu jaajuurkii ku dhamaaday oo mahadnaqaynaa dadka muslimiinta ee ka qayb qaatay Maxamuud Jaamac ugu horeeyo iyo Farxaan iyo inta kale asxaabta muslimiinta ka qayb qaadatay inta lacagaha soo dirtay dibadda joogta inta qalbiga ka jeclayd inay mar uun wax qabsoomaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. sidoo kale waxaanu u soo jeedinaynaa ummadda muslimiinta in ay guriga imika waxa hore jiingadii siriigii marmarkii wixii suuyaasha la gelin jiray albaabadii daaqadihii sibid qorigii ka wax badan baa haray wax badanna way qabsoomeen haddana fari kama qodna. waxaanu leenahay dadka muslimiinta guriga ka qayb qaata maanta wuxuu marayaa halkii cid waliba ay garanaysaa ka qayb qaadan lahayd. waxay indha arkaan biilka gooyaan baa leeyahay dadku imika waa la arkay qof kale wuu garanaya in waxay hayto gurigii oo meel fiican marayo. marka waxaanu leenahay ka qayb qaata dadku waa dadka sawirkoodu ka yahay horena aa aragteen ka qayb qaata ilaahay idinka ajar siinaya dadka wada xanuunsanaya ilaahay xanuunka ku saliday dadkana waa la isku eegaya dadkana waa iska imtixaan waa wixii nabiyadii ku dhacay nabi Ayuub soo maray nabi Yunus soo maray nabi Yuusuf soo maray waa iska imtixaan. marka inaga dadka inta caafimaad qabta baa lagu eegaya anigana runtii dhiiri geliyo iyo inta kale muxsiniinta ee waxay qabatayba runtii dhiiri geliyo idinkuna khayrka ka qayb qaata waxa ka harina khayrka ilaahay bidi ku eegay. sidoo kale dhammaan dadkii ehlu khayrka ah ka qayb qaatay dhismaha gurigan ayaa dhankoodana ugu baaqay nafahooda iyo bulshada islaamku meel kasta ay joogaan gaar ahaan Soomaalidu inay si mugla uga qayb qaataan dhamaystirka gurigan iyo wixii ay u baahan yihiin. waxaan celinayaa dadkii muxsiniinta ah gurigan aynu imika joogno oo aynu rabadaan dhexdeedii ogeyn isagoo bilowa oo seeska maraya imikana arkaysaan halku marayo runtii guriga wuu masaxmay jiingadii umbu imika u taagan yahay jiingadii iyo qorigii iyo siligii iyo marmarkii iyo rinjigii iyo wixii kale ee finishin ahaa isaguna guriga u baahnaa ee sidaas aluminiyumkii waxyaabahaas oo kale walaalahay guriga meel fiican buu runtii marayaa tacabkiinina wuu muuqdaa ilaahayna waa nagu guuleeyay subxaanahu wa tacaala isagaa mahadle ciddii hore uga qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cidda imika waxa weeyaan diyaarka waa inay ka qayb gashaan ayagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay waa walaal mahad iskale dadka islaamka ee walaalaheena sida yihiin aynu aragno ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaamay xanuunka dhimirka waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryay inuu caafimaad siiyo ciddii wax ka geysatay waxa weeyaan gacan u fidisana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana uu naxariisto caafimaad uu siiyo ubadkoodii iyo oryahooda iyo ayagaba caafimaad taama ilaahay u siiyo. walaalayaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamukum min fi samaa aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam u naxariista
gudaheeda cidda joogta cidda samada joogta idin naxariisan doonta markaa walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala inaa intaa soo dhammaystirtaan ciddii wax ku darsanaysa wuu socdaa gurigii waanu insha allahu tacaala dhammaan doonaa waxaan idinka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dadka muxsiniinta islaamka sidii hore uga qayb qaadateen ina walaala imakana hawshii halkii ka sii wadaan aynu gurigii dhammaystirno oo dadkii la soo qaado oo dabeetana caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii kale la galo ayaa idinka codsanaynaa ilaahay daawo keenay dhimarka ee inankaasi ka harsan yahay ee uu shaqaynayo oo tuulooyin dibadda fadhiya geed hoostiya waxaan kaloo la mahadnaqayaa maxamuud jaamac oo ah ninka hawshan bilaabay ee ilaa hadda u taagan ee wixii dadku u soo diraana saa ugu dhammaynaya isaguna tiisii ay ku baxday markaas waxaanu leenahay qolqoljoog iyo dibad joogba dadkiinnii ka qayb qaatay aad iyo aad baa u mahadsantihin waxaanu kaloo codsanaynaa inta kale ee aan ka qayb qaadan iyo kuwii kale ku soo kororeen muxsiniintiiba inay dadkaas ilaahay xanuunka u keenay aanu doonayno inaan dhakhtarka u soo dhoweyno inaanu miyiga ka soo kaxayno dabaysha iyo geedka dushiisa gurigii maalintii hore arkaysayna seeskiis buu taagnaa iminkana waa kaa siliga iyo jiingadda iyo looxa iyo marmarka iyo albaabada iyo daaqadaha u baahan markaas walaalayaal waa arkaysaan muuqiisii markaas sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa in loo soo dadaalo muslimiinta oo dhan qolqoljoog iyo dibadjoogba inay soo caawisaan oo intaa ka hadhay guriga aad u soo dhammaystirtaan bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan u nimi dadweynihii muxsiniinta ahaa ee gurigan ka qayb qaatay inaannu halkan fiideo haddana ku tusno xaaladdiisa halku marayo markii horena sees dhul bannaan buu ahaa sees buu lahaa iminkana waa guri mataqaanaaye dee dhismihiisu uu maxayta dhexdhexaad marayo waxaa gurigaa ka dhiman finishinkii oo dhan baa ka dhiman saqafkii baa ka dhiman jiingaddii iyo siilinkii baa ka dhiman iyo wax allaala wixii finishinan oo dhan markuu halkaa gurigu taagan yahay waa kala badhow badh dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay ee uu maxamuud jaamac u horeeyo waa u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu xasanaad fiican ugu bedelo oo khayr leh dadkan islaamkii horta waa dad aakhiro sidiisaba ninkii aakhiro wax geysta ee iska horraysiiya ayuunbaa ugu faa'iido badan waxyaabahanna waa waxyaabaha laynagu eegaayo ee ninka islaamkaa lagu eegaayo aad baanu idinku mahadnaqaynaa wixii tacabahee iyo muxsiniintu ay ka qayb qaateen ee gurigan ku saabsan iminkana dee dadaal badan iyo shaqo badan buu u baahan yahay waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa inuu gurigaasu dhammaado muxsiniintii hore uga qayb gashay iyo kuwa cusubila inay dee ka qayb qaataan dadkaa bannaanka jiifa ee tabaaladu ku dhacday ee dhibaataysanna waxaa loo baahan yahay in lagu soo xareeyo howlahoodu markaasunbay bilaabmayaan wixii tacabahee kale ee loo qaban karana loo qabanayo laakiin maanta waxaa la joogaa heerkii gurigii lagu soo xarayn lahaa wixii ka qayb qaatay ee muxsiniinta ahaana waa u mahadnaqaynaa qoladan warbaahintana waa u mahadnaqaynaayo dee mataqaanaa ay faafisay waa dad dhibaataysan oo guri loo yegleelayo duruufi kama madhna wax badan bay u baahan yihiin ilaahay dartii u soo caawiya walaal wixii aad heli karaysaan ilaahay dartii ku soo caawiya